dalkan Mareykanka waxaa weli ka soconaya dibadbaxyo looga soo horjeedo habdhaqanka booliska ee ku aadan dadka madow. madaxweynaha Mareykanka oo ay wehliyaan mas'uuliyiinta jamhuuriga ah ee aqalka sanadka ayaa toddobaadkan waxa ay daahfureen amar iyo sharci lagu doonayo in dib loogu qaabeeyo booliska. haddaba dibadbaxyada ka soconaya dalkan Mareykanka gaar ahaan Minneapolis waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade. dibadbaxyada weli ka socda dalka Mareykanka ee lagu raadinayo xuquuqda dadka madow ayaa bulshooyinka ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Mareykanka oo laftoodu dareensan inay qayb ka yihiin bulshada madow ee Mareykanka. Faaduma Maxamed Cabdi waxay ka mid tahay Soomaalida Minnesota ee sida joogtada uga qayb qaadanayay banaanbaxyada tan iyo markii George Floyd lagu dilay magaalada Minneapolis. laba wax ay ugu kalaftay shayga hore waxa weeye diiniyan maadaama aan muslim ahay meeshii aan arko bagardaro inay ka jirto inaan moogtay ka difaaco dadka bani aadanka oo waa mas'uuliyad anagana saaran. shayga labaad oo igu kalifay waxa weeye meesha Mareykanka la yiraahdo anagu jirkeena waa jir madow waxna loo arkaa anagu madowgan iyo African American isku mid inaan nahay marka inaan meel iska fariisano maaha oo niraahno Afrikaankeena iyo waa kala duwanahay. Faaduma waxay Mareykanka timid iyadoo 2 sano jira haatan waa macallimad wax ka dhigtay dugsiyada dadweynaha gobolka Minnesota isla markaana waxay qayb ka tahay dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha iyo sinaanta bulshada. Faaduma Maxamed Cabdi inkastoo banaanbaxyada ay la dhacsan tahay haddana iyaga oo kaliya uma aragto in lagu gaari karo hadafka guud. banaanbaxyada waxay ka mid yihiin yani wax weyn oo leedo movement oo dhowr meelood moogtay lagala dagaalamo waxa laga yahay xagga siyaasadda xagga banaanbaxa marka haddii kaliya banaanbax lagu aadamo oo aan wax kale la sameyn oo aan la voteyn aan dad moogtay sharciyan lakiin askar cusub lakiin isma bedelayaan wax marka culays bay saaraysaa dadka siyaasiyiinta iyo way arkeen shacabka inaan meel iska fadhiyeen oo iyagu aan u dulqaadanayn waxan. dibadbaxayaasha waddanka Mareykanka ayaa waxay dalbanayaan in booliiska la kala diro amaba dib u habeen lagu sameeyo dhammaan bahanaanka booliiska iyo kan garsoorka ee dalka Mareykanka oo badi dadka madow aanay kalsooni badan ku qabin. anigu saan hadda sheekada u fahansanahay wax bedelka askarta waxba isma bedelin dowrkiisana ugu dambeeyay baa la lahaa lacag badan la siiyo training dheeraad la siiyo wax isbedelay ma jirto marka anigu waxaan oran lahaa hal la baabi'iyo oo wax kale lagu bedelo laakiin wixii waxa la rabaa wax laga sii tashaday oo bulshada ay ka qayb gashay oo aan iska ahayn la yiraahdo maanta waxana lagu bedelayaa wixii laga sii fikiran waayo dhuntii dhibaatooyinka lagu keenaya. inkastoo ay dibadbaxyadu soo jiiteen indhaha caalamka oo raadinta xuquuqda dadka madow meelo kala duwan oo caalamka looga bannaan baxay haddana dhinaca kale waxaa jirta in banaanbaxyadu ay mararka qaar noqdaan kuwa rabshado wata oo keena biliqo iyo burbur hanti taasi oo dadka qaar u arkaan inay wadada ka leexinayso ujeedooyinkii laga lahaa banaanbaxyada balse Faadumo sidaasi uma aragto. maya ismalihi anigu saa waayo markii horeba ciladan waxa keentay dad badan baa diidanaa inay arkaan nolosha Mareykanka siday tahay waliba haddaad qof madow tahay dadkaaga madow marka dadka wax gubaya anigu ma iraahdeen wax guba laakiin iyadoo isaa tahay waxay u keentay exposure qofku wuu arkayaa marka dhibaatooyinka dadkii waxay ugu badatay waxay gaareen heeray wax kale ay sameeyaan garan waayeen. jilibkii Derek Chauvin ee keenay dhimashadii George Floyd ayaa dadka madow ee Mareykanku waxay ku macnayeen mid dhammaantoodba luqunta ka wada saaran waxaana haatan bulshada madow iyo kuwa la dhaqnada bay u arkaan in dhimashadii George Floyd loo adeegsado fursad lagu suuliyo jilbaha cunsuriyadda ay tuunsan yihiin in ay ku jiraan hanaanka booliiska iyo garsoorka ee Mareykanka. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade VOA Minnesota.